siyaasiga Cismaan Cabdullaahi Cigaal Hindi ayaa shacabka reer Berbera ka raaligelin Hadal uu sheegay in murashaxa madaxweyne ee xisbiga kulmiye uu ku duray maanta mujaahidka kaliya ee kaadidiisa u soo cabay dib u xoreynta gooni isku taaga Soomaaliland mujaahid Muuse Biixi Cabdi hadallada deelqaafka ah ee ka soo yeedhaya ee beelaha siyaasiyiinta iyo shakhsiyaadkaba uu kula dul kafayo ayaan raaligelin joogto ah ka bixinaya maanta ugu dambeyn mayso wanaagay Britol ay man doontaa diyaar baan u ahay maalin walba qolooyinka Reer Berbera oo shalay toole cabaadii waxay ahaayeen gobolkii anusiidiyada iyo sodog iyo wax isku ahayn wali kama hayna xaal waxaan leenahay Reer Berbera raali ka ahaada arinta war mujaahidka u dulqaata waxba kama jira ku tilmaamay nuxurka qodobo ku jiray war murtiyad laga soo saaray shirka madasha wada tashiga Soomaaliya oo Muqdisho lagu soo gunaanaday dawladda xamar حسن شيخ مدحوينها كيهي مدحوين حسن شيخ وحن لا مدحوين حسن شيخ وأمة الرئيس أمة الصومالية دوي أكتهي قون إسكتاج الصوماليان يحريدي دب أن الله صون قناي سببها كلفي صومالي ودم باوج ننا عسن اللوشيج مايو هكوف ذي حذوب sidoo kalena waxa uu dadweynaha reer Soomaaliland ku booriyay in ay isku soo bax ku muujiyaan dareenkooda qadiyadda jamhuuriyadda Soomaaliland gabadhina waxa uu taasi u diray ehladii uu ka baxay in ummadda reer Soomaaliland ay isku soo baxdo oo shucuurtooda muujiso oo saddexda inagu dhexnool ee hunguru kaga jiro in ay ka qayb qaataan arrimaha loo mareegayo Soomaaliland أنا إنك مدهين عدة تكتة أنو أرنتاسي عدير وجود بينو دتكينه مرحوم خليف حسن قدالة أو كتر سنة مدنياشة قلها كورتي ده وحن أمد الرئيس ومالان إهلكي يا قرابضي يا ريركي وكبحي الشيخ خليف مرحوم الشيخ خليف أو أها ركومد وجوا وين يقولها كورتي ده كسوق قاطي دي بديسكي سومالان نبضينتي iyo xalinta khilaafaadka siyaasadeed ayaan maanta ka tacsiinayeen dhamaantood ummadda reer Soomaaliland oo dhan iyo qaraabada iyo ehelka iyo reerka uu ka baxay najaadan unaayeen oo cable TV hargeysa